wacan oo wanaagsan waqti kale iyo maalin kale January waa inoo bilaabantay walina waxaynu ku dhex jirnaa ictiraafkii Somaliland iyo waa hawlihiisii maantana yaa yimi waa barnaamijkeena maxaa cusub oo maanta ku eegana ictiraafkii yimiye faa'iidadiisa iyo khasaarihiisu muxuu noqon doonaa ma loo diyaar yahay ictiraafka hadaba maanta aniga khadar dir ayaa barnaamijkeena daadihinaya haddii beedin kale yahay maxaa ka wanaagsan inaan helo dad khubaro ah wasiir ahaan jiray safiir ahaan jiray la taliyaal madaxweyne iyo la taliyaal wasiiraba noqday aan ku bilaabo marka hore Axmed Cadare oo ah hanjay wasiirkii hore ee cadaaladda in badan Soomaaliland runtii ka soo shaqeeyay 12 sanana ugu dambeeyayna dawladda marna ku jiray marna ka yara maqnaa yaa ku xiga ambassador Cabdilaahi Dayax Weerar oo isaguna ahaa safiirkii u fadhiyay Somaliland UK dawladii hore ee la soo dhaafay isaga oo lix wasiir oo arrimaha dibadda la shaqeeyay ictiraafkana ka warhayay yaa kale idin hayaa maanta nin dhalinyaro ah waxa weeyaan oo markaas halka Ibrahim Yusuf oo ahaa markaas la taliyihii wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladii hore ee Muuse Biixi Cabdi ahaa kuna dhadhawaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ahna marahan la taliya ahaa meelo badan la soo qabtay dhalinyaro soo dhawaada dhalinyarada tindeeyinka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maxaa cusub ka soo qayb gashaan marka hore dee su'aal fulan xagga ka bilaa Cabdilaahi in badan baad soo shaqaysay in badan baad ku jirtay ictiraaf uu yimi habeen maanta yimi ma halka joogtay waxaan joogay magaalada London baan joogay marka yani si aan la malaynayn baan u farxay markii aan maqlay waxaan filayayna wayahay 6 sannadood oo aan ahaa safiirka Somaliland 4 sannadood oo aan ahaa gudoomiyaha hay'adda qurba jooga waan la soo shaqeeyay 6 wasiir arrimaha dibadeed waxa maalinta ka dambaysa maalin walba 6daas meel way hadda soo maraysay marka maalinba waa maalinta ka dambaysa waxa oran jiray toloma berita toloma saadaba laakiinse nasiib wanaag waxay noqotay 26 December 2025 waxaana nasiib u helay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi President Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo dawladdiisa wadani ayaa u helay nasiib inay maalinta soo xirigeliyaan ictiraafka Somaliland marka miyaad oyday miyaad qosashay miyaad boodbooday aad iyo aad baan u farxay qof farxada halkii ugu sirreysay uu lahaa waayo waa muddo dheer baa halganka aan soo waday Ibrahim aniguna London baan joogay anagoo niman dhalinyaro saaxiib nahay baa lanoo soo sheegay waxay ah farxad aad u weyn mar alla markii la yidhi kelmad ictiraaf Somaliland sida shucuurta ku gashay waxay yidhahdaan kii bay istaagay xadda istaagtay marka farxad weyn ayay ahayd waxaanay ahayd hambalyo weyn waxay ahayd mid madaxweynaha Somaliland maanta uu dee ka nabadgeliyey inkastoo ay soo socotay oo madaxweyne walba Somaliland soo maray oo uu soo dhisay madaxweynaheena inuu gabagabeeyey farxad weyn والسلام على رسول الله horta marka hore daawadayaasha qiimaha leh waa u mahadnaqaynaa iyo khadar xifig weyn oo waxaan ku leenahay hablo kale ku mahadsantahay dhammaantiin waxaan ku salaamaynaa runtii waxay ahayd hashii maaday qof fulanaysay oo midda su'aal oo la filayay oo bishaaro wanaagsan yani afeefteedii uu bixiyay oo uu dhaafi mayso bishan December هذا اللي نعمل معجزة نقطة مدحون ميسك هلا ميريونيا وحبذا بال هذا الحين إلهي سبحانه وتعالى لحلواتك ديسمبر إيه مودي كنت مركان مقال الله يرتها لا برك على وضع مهنقة أيام تكني حافظ سلك ودع عيني وحن إلهي وخير لنا هنا وافتش عشان لنا هنا الله هنا غبوتشيو
runtii tankii aanu garaadsan la yaraa markaa calanka markaa loo dabaaldegayay iminkana waan jeclaano hargeysa joogo oo damaashaadka la boodboodaya laakiinse maashaalkii dee laga aasay londona ayaanu saddexdeedbana isugu yeelanay habeenkii magaalada lama seexanin oo runtii si wanaagsan oo qurux badan ayaanu kusoo dhawey lakin maxay mucjisano hadduu fiirso 26 joog baan yahay in xorriyadda qaadanay waxaa haddana ina soo maray waxay noqotay 26 Disembar markaasaynu sanadkii 26aad haddana soo galnay 26aad shayga ducada waxaa la yidhahdaa marka haddii wax dhacaan ijmacdaan 3 jeer hadday isku beegmaan horta waa macmuula marka way dhammaystirmaysaa insha allahu tacaala su-aasha ugu horeysa waa mahadsantiin dhammaantiin runtii dee farxad bay ahayd qowmiyaddana farxad bay u ahayd cabdi cabdilaahi 6 wasiir baad la soo shaqaysay sidii sheegtay markii dhaweyso oo wasiirada arrimaha dibadda ah kolay dee qofba meelba marayay ictiraafku yimi bal ka waran marxaladuu soo maray iyo waqtiyadu soo maray adoo isoo koobaya okay marxaladuhu way badnaayeen 6 wasiir 3 madaxweyne ayay la soo shaqeeyeen waqtigoodii maalinba meel bay maraysay waxaa intaa ii dheer ilaa 28 dal baan soo mara markeen dal walba wuxuu lahaa berrito dal walba wuxuu lahaa dalka koowaad ma noqonayna dalka labaad baanu noqonaynaa dulal badan baan ka firayay laakiinse 3 madaxweyne iyo 6 wasiir mid waliba himiluu lahaa inuu ictiraaf keeno waxay noqotaba maantay guud urata maanteer arrin bay ahayd mucjisa oo aanan ka filayn marna in ay in dalal kale ka horeeyaan baan filayey laakiinse hadday noqotay dalkaa in ictiraafay ee Israa'iil aad iyo aad waa wax farxad iyo bogaadin iyo bashbash iyo barwaaqo aynu rajaynayno noqoto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay markaad leedahay wasiiradii hore ee markaasi ugu dambeeyey isagaas ugu dambeeyey meesha ureysa markaa aad iyo aad dabaysheedu mar walba waynu hortay mar walba waa noo waxa weeye waayo hawshan iminka dalkan ina ictiraafay way bilaabeen ciidankeedu waa bilaabay waanuga halku ka bilaabay leedaa waqtigii ciyaal bay bilaabantay ilaa waqtigii ciyaal bay bilaabantay loo tagay Israa'iil yes waa ka ciyaal leeyahay shaydaanna ahaatee meeshii uu laga galo waan geynaa waa ka ciyaal u leeyahay at that time waa bilaabantay laakiinse waqtiyada aan soo gaadhay kulamo badan waa jireen oo hoos ah waana halkan ka sheegi publicly laakiinse waxa weeye calaa kulli xaal maanta cabdiraxmaan maxamed cabdilmajid ayaa u helay nasiib inuu ku soo taago aniga maalintii calanka ay degmada gobolka Cardiff aan calanka ka taagnay maalintaa farxaddeedii waa ii muuqatay inay wax degdeg u imanayaan waana dhacda axmed cabdireeb marka dee kolley wasiir baad ahayd ictiraafkiina waa yimi wasiirka arrimaha dibadda ee markaasi Israel Moses Sanch ayaa markaasi ka soo tegey maxaa la dareemaya markaad wasiir ahayd halkaas fadhiyid maanta wasiirada kula midkaa maxay dareemayaan madaxweynaha iyo golaha xukuumadda horta waa hambalyo dee horta farxad baan dilaaci lahaa anigoo cabinet ka mid ah hadday arrintaas imaan lahayd horta waxay noqon lahayd historic laakiin waa la midoo tacabkan soo gelinay baa midhaheeda lala guranaya waa ku hambalyeynaa dareenku runtii waa sida maaha sidaa uu sheegay cabdi cabdilaahi safiirkuna waxa weeyaan somaliland waxaynu odhan karnaa waa aqal soomaali la soo gelinayey 7 madaxweyne iyo 5 xusbi ayaa nasiib u yeeshay inaynu soo taagno oo saynu sheegnay madaxweyne ugu horreeyey cabdiraxmaan allahu naxariiste
dee aasaaskii buulka ayaa la dhigo markii laga soo qaaday koonfuriga kala soo noqonay waa la taagay markii halkaa la taagayna udub baa oo allahu naxariistay riyaale oo udubadii u taagay dhidibadii dabeetana waxaa ka dambeeyey axmed shiree allahu naxariistay iyo muuse bixiyo kulmi oo iyaguna aqalkii ministarkii ay taageen marka shacabkii aqalkii waa dhismay laakiin waxay ma jirtaan dadkoodina la garan maayo haddii meel u baxaan hawadaa laga xidhay biisa laga xidhay dabeetana ilaahay wuxuu soo diriyaa oo markaasi aqoonsigiisa jebisa waxaa mucjiso noqotay lama filanay waxa weeyaan caalam islaam oo dhan baa jiray turkiga oo dee dowladda ugu weyn ee qabanqaabadii Egypt waday ma inay danahooda ilaashadaan hadday Soomaaliya wada jirkeeda dadka leeyihiin intii hore qaban lahayd maanta markii uu Israa'iil waa saaxiibtino inoo muujisay oo 60 saas la inoo muujisay inuu abaalka u hayno inay hinaasaan oo yidhahdaan kala daadinaynaa hal meel dowladda Soomaaliya waqtigeeda marka haddii maanta wasiir ahaan lahayd dareenteen la eg marka shacabka loo waagi lahayd dee waxaan ku leeyahay farxad baan yani awish baan ku leeyahay dee kaalintaa ku jiro yani fursadeedii laakiin waan soo tilmaa waxaan ku yidhi maadaama aanu ka soo shaqeynay in badan maanta waan hanay oo hibadeeda nasiib yeeshay farxaddaa ka muuqata xataa inaan goobjoog ahaado xafladdii meeshii lagu qabanayay oon calanka saa ululayo ay runtii dee ay ahaan lahayd laakiin dee la dhammaanulay ka dhicin halkii lagu aasaasay mataqaanaa gebigeedaba in dib loola soo noqon xiddeedii ayaan anaga dee saddex ka fadhidaaba runtii nasiib yeelay oo farxad runtii ilahay u mahadnaqo haddii dhigta aad noqon lahayd ood marka qaarkood ahayd ku dhawaan madaxweynaha haddaad ku dhadhawada la taliya ahayd tale caynkee lag baa markaasi madaxweynaha aad la wadaagi lahayd maanta oo kale ama fariintaag baa caynkaga qori lahayd horta waxa weeye wanaag weyn bay tahay waa kow laakiin su-aasha aan maanta madaxweynaha aan oran lahaa diyaar ma nahay shaqadii looga ictiraafka kow oo diblomacy waxay leedahay process dheer iyo shaqooyin badan waata koowaad shaqooyinkaa diyaar ma nahay ta labaad waxaan odhan lahaa madaxweynaha task force waxa la yidhaahdo in ugu dhaqsaha badan loo sameeyo oo ka shaqeeya arrinta ka madax bannaan dowladda budget leh dad waxaan khibrad u leh diblomacyga loo saaro waad garanaysaa berigii dhowtoode waxaa jiray baarlamaanka ingiriiska inuu waraaq soo gudbiyey waraaqdaa waxaa ku xusnaa waxa dowladda laga doonayo diyaar garowgeeda haddii iyadoon waxay intaan iyoon bay ictiraafku marka waanooyin baa ku jiray waxay u baahannahay inaynu qabno si aynu ictiraafka ugu diyaar garowno markaas koowaad waxaa goran horta waa in task force la sameeyaa kartidii leh waxaan qaban kara maxaan ku rahdaa maal gaar ahoo ay ku shaqo galaan loo sameeyo xafiis gooniya loo sameeyo taas waa shaqadu intan dusha aynu ka maqlayna maahee shaqo badan ayaa soo taala tan labaad waxaan odhan lahaa maadaama waxaa jira inta xawaaruhu jiraan momentumka waxay gaaladu yiraahdaan intay jiraan inay ka faa'iidaysto oo maanta markaad eegto halhaynta si adduunku inoo hadal hayaan qof wal oo aan somaliland aqoonin maanta wuu garanaya intaa lagu garanaya xiisaha la hayo ay dadku doonayaan inay ogaadaan waa inay jiraan si weyn oo adduunka u kala baxa oo dal walba target gareeyo dal walba intaa ay sheekadu socoto halkay inaga taagan yihiin iyo sidaynu aynu u riixi karno saddexaad afraad noqdaan aynu samayno marka task force kow dabadeedna mission kaa baxa oo adduunka u baxa saddexaad waxaan odhan lahaa inaga dhexdeeda institutionadeena haddii maanta safiirka halkan fadhiya waxaan ku dari lahaa su-aal horta kow farxaddayda markii aan farxay waxaa kow aan u diray hambalyadii ugu koowaad safiirkii bedelay anigoo ugu hambalyeynaya maadaama uu dowladdii uu siro isagu halkan qofkii koowaad uu yahay hambalyadii ugu horreysay waxaan u diray siciid xasan biixi oo ah safiirkii bedelay u hambalyeeyey guusha ayna gaadhnay ee madaxweynaheena gaadhay
ibrahim kelmadda uu sheegay taaska ah waxaad moodaa waxyaalaha talooyinka maskaxdayda ku wareegayay aan ka fikerayay bay task forcekaasu aad iyo aad bay u important u yihiin very important oo dadkaan ka fikirayay waxa weeye kalaaska masal adna aadan dr bulxan saleebaan axmed guuleed dad caynkaasoo kaleberkaasoo ah garanaya halkayni ka nimi iyo halkayni joogno maanta iyo wixii aynu soo marnay oo iibin kara somaliland oo waayo arag weydii cabdullaahi maxamed cali yani dad kaleberkaa leh oo ilaa 7 ilaa 10 oo guddiya inuu madaxweynuhu sameeyo u kala diro maanta caalamka iyo jaraa'idku iyaga inoo hadlaya innaguna inaynu wax ku darno oo weli weyna ka maqanna marka inaynu saaxaddii soo galno oo waayo arag ni ka faa'iidaysano oo gees ciid intuu kulul yahay baa la gooyaa inta xaajadu kulusha in aynu hawsha galno wasiiradiisu maadaama ay ku hawlan yihiin daily work u yaala day to day business wasaarada in task force la sameeyo sidaa ibrahim cali yuusuf uu sheegay oo adduunka u kala baxa oo iibiye qadiyadda oo siday u iibiyaan iyo meesha ay ka gelayaan yare afrika loo diro yurub loo diro asia loo diro america loo diro adduunka caalamka loo diro ayna kasbanno halkaa midaan ku daro task forceka qasab maaha inay reer somaliland oo kala noqdaan task forceka waxaa ka mid noqon kara saaxiibadii aynu lahayn ee adduunka ingiriiska saaxiibaynu ku leenahay inoo diyaara maraykanka saaxiibaynu ku leenahay inoo diyaara israa'iil oo inoo saaxiibaynu ku yeelanayna marka dadku u istaagayaan oo kala heer sare ah leh ama ambaasadore hore ha noqdaan wasiiro hore ha noqdaan maxaan ku dhahay sidaasoo somaliland weligoodba taageeri jiray waa dadka aynu u baahannahay inaynu outreach ku samayno ee task force aynu ku soo darno somaliland iyo wada shaqaynaya ay task force waxaynu doonayna inaynu gaadhno waa one of quarter si quarterku waxa weeye waddanka gudihiisa maanta aqoonsi weynoo yimi institution nidaama inoo dhisan oo qabyo ah waxaynu u baahannahay arrimaha dibadda markay noqoto waa ku dhacsanahay qodobada waa very important laakiin maanta labadii dowladood adduunka ugu xog weynaa aynu oran karinay way nala riixayeen aynimada sugaynay ayaa horta maanta dee aynu gacanta ku haynaa taa waxaan aaminsanahay waxa aad u muhiima in qaranka gudihiisa dowladnimadii maadaama waxaynu ka baxnay iminka wixii dee oo la oranayay dowlad maynu hayn wadan jirin iminka dowladaynu waxaan u baahannahay inaynu deegaamadeennii iyo institutionskii nidaamkii dowladnimo ee lagu shaqaynayay maadaama labadii wasaaradooda runtii ugu cusbaa markay noqoto cadaaladda iyo arrimaha gudaha oo labada meelooda u baahan waddanku dee xogteeda lagu haya ay tahay waxaynu u baahannahay khayraadkeennii baa jira maanta israa'iil baa inoo timi oo saaxiib ah oo runtii waxayba ugu muhiimsanayno ma baryootobayna madaxweyneheedu waxaynu u baahannahay waxbaynu iswadaarsanayna marka aqoontii baa naga maqan wixiina wayna haynaa qodobkan uga socdaa waa ka marka haddaanaynu institutionskii aanaynu hagaajin gudaha aan u soo noqday axmedow taawarkeenii dowladda soomaaliya markaasi dee markii hore uu ka bilaabmay 60kii cabdi cabdilaahi madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh u hadla siyaasiyiintoodu way hadleen ficil celis inteynag bay ka sameeyeen somaliland iyo ictiraafkeeda wallahi waxa weeyaan mid la filayay weeye waxba kuma yeelo nabaraad filaysa sheekadooduna maanta way arkaan in somaliland socotay oo waxa weeyaan khudbadiisii haddaan dhegeystay xalayto aan dhegeystay waxay isugu jirtaa calaacal baryo hanjabaad intaasoo israacaana meel ma wada galaan ama hanjabaad ku ekow oo waan idinla dagaalamayaadhe ama baryo ku ekow calaacal ku ekow le door arrintaas soomaali baan
wixii ku beegnaana ma uu garan waxa weeyaan maraan xamar macallinka ahaa waxaan arki jiray mahmaha baa jirtay oo aan had iyo jeer maqli jiray indha adayg beesale waaye saaxiibadaydan caawa u sheegay indha adayg sheekadiisu waxa weeye indha adayg beesale waaye waxay u wanaagsanaan lahayd inuu yiraahdo oo uu badheero oo kursigiisana ku waaye uu yiraahdo war Somaliland waan idin ictiraafay bay xalay dadiisu uga sharaf doonaan lahayd laakiinse maanta wax allaala wuxuu qaban karaana ma jirto meel ay ka soo noqon karaana ma jirto Somalilandna homeworkeedii way qabsatay isagaana oo cadowtinimo inoo tusay iyo dagaal buu inoo tusay oo ina ka kiciyey iyadoo ay hareba u socoto marka wax qiimaheedna ma jirto dabeeraa ku taagan yahay muxuu iga qaaday bulshadiisu maxaad khudbadii markaad eegtay khudbadiisa markaan dhegaystay anigu waxaan u arkay maamahdii Soomaalidu jirtay nin daad qaaday xubisay wuu arkayaa inay Somaliland socotay khudbadiisan waxay wax tari lahayd 35 sanadood ka hor xataa waxaan anigu aaminsanahay inuu xasan sheekh qayb ka ahaa inay arrimahan degdeg u dhacaan madaxweyne wal oo Soomaaliya soo marayna haddii inuu Somaliland ay inuu rajada yihiin waxay sameeyeen may sameeyeen mid yiraahdo xira oo dhaqaalahooda kaga istaaga mid yiraahdo meedkiina iibkiisa u soo doonto lacagta aniga ii keena madaxweyne wal oo soo maray markaad soo dhaaftay in jiritaankeena diidanaa cadaadis bay ummadda reer Somaliland marka maanta maalin ay 35 sanadood ka hor waxay ka fikiri lahaayeen maanta goor ay Somaliland socotay hadalku yiraahdaa wax alla loo xumeeyna u yeelan jirto maanta sidaa uu Cabdilaahi Cabdiba uu sheegay Cabdilaahi Bow sheegay waxa uu habboonay inuu yiraahdo war walaal annaga ay ictiraafnay sidee kaleenu ku wada qabsanaa laba dalo maanta ay dad Soomaaliyeed oo walaalaheena ay yihiin waxa fiicnad inuu yiraahdo war Jabuuti hore u socotay Somaliland hadaad soconaysaan annagana waxna la qabtaa siinanu wax u wada qabsanaa taas maanta ugu khudbadiisu noqon waan qabaa runtii waxaan qabaa xasan inuu inala shaqeeyey in aqoonsaday si dadban markhaatina wax laga egaa shaqada laga egaa xasan waa markii labaad soo noqdo historika Soomaaliya markii la sameeyay Soomaaliya lagu soo diray marka horeba go'aan baa meel iska yaalay hadal baa laga dhigo magacii la isugu iman lahaana waa laga tegey sharci ahaan marka horta waxaan aaminsanahay inuu inoo soo dedejiyo federaalka wax laga dhigo wixii Soomaaliya ee la isku oran jiray Israel Italia marka horeba sharciyan wuxuu lahayn marka xasanna de waad garanaysaa oo waa ninka maanta wejigana maanta sidaan ahay برنس كلام هاي مركا أنت تقدر تقنعي أحمد يمكن هذا مثل شغلنا وحياتنا بكهلا وروى الكاتبير ولد اعتراف Somaliland لأنه وإسرائيل ولد يرماه ولا جيدي حمانتي دي شرفتي كلام الواحد سوى يلان كرت وحلقية بمركو لي وروى الكاتب بلا يميل لقول دعيا حسن قصته هاي ما تكوني مجتمعي هجان كوها أنا نكفل إن كنسة وصباحي ما أوران كريو ولا يقبدي ما أوران كريو ولا يهصمر بركوين وقرعيو إلى هو نفسي ده وأودي أدونك جوين إدمت ميو وحبك ما قبل كرو على يوم ده ولا خلي تونش أوفيس تونش ولا ليدي أوفيس ولا كنا محمد بكرة ولا ما هو ندور سلوى markay habboonay eegay dawladdii caalamka awoodii waddan qaybdan qaaday uu badahan ugu ballan qaaday hadday walaaltinimo islaamnimo jirto marka muu yidhaahdo war waa kana xalil war xiriifna kala dhaceen waxa leedahay marka fogaaday xasan hadla xasan asagayna aqoonsaday ninkaas anigu uma hadla si dadba bino aqoonsaday marka أنت بدل عبد مدحوينها جمهورية الصومالية ومحمد وحاجة والورا لا يا ربيها كل حين أن سينما حال لابد ذي السينما دو سؤال ونكسن
laba iyo toban goor hore laysu yimi laba iyo tobankaa goor ee laysu yimiba baa hadba loo kala qaadayay umuurta mar waaxida waxay fuliyeen oo rasmiya oo wixii laysku raacay ay fuliyeen mar walba iyagaa ka baxayay hadday noqoto tii dayuuradaha hadday noqoto tii ahayd ayne xidhiidhku ha socdo mar walba wax kastaba ha haatee iyaga ayaa baxayay laba iyo toban fadhi oo shir oo wada hadal oo aynu wada hadalnaa oo mandhalaysa ayaa ka soo baxay therefore waxaan anigu su-aasha aan la yaabanahay waxa weeye war markaan xamar joogay toddobaatanaadkii sideetanaadkii wax la oran jiray gaarigiisii keenay laga baxa war maanta waxaan idin daba socdaa haddaan iska baxay oo tashaday walaalkiisu waa walaal bilaasha walaal rasmiya maaha walaal niyada maaha wada hadalnadiisuna mid go'aan leh oo go'aan qaadasho leeyahay maaha aniga madaxweynahay 2 milyan ku dhow baan dal ayaa soo saartay isaga imise weeye 200 baa teendhada ku shirta oo soo saaray oo 60 ay ruuye awood weyn awood waxba ma matelaan marka inuu xaqiiqda riwaayadda iska daayaan beenbeenta oo somaliland socotay mana soo noqonayse inuu xaqiiqda uu wan weyn ilaa la birayo indhihiisu cirka ma arkaan quwadii ugu weynaa adduunka ayaa hawsheena wado ina taageeray meel ay ka soo noqdaan ma jirto nabadgelyo bye bye walaal waanu leeyahay bal horta in yar kaaje oo 2 bilood ama 2 bilood loo hadal maya waxa laala wax ka jira haray wuxuu gar bislaan lahayn Soomaalidu waxay tiraahdaa maridage ana istage waxa weeyaan qof la god laba god laguma wada qiimo haddaad si taariikhda ugu noqoto iminka 10 goore wada hadalku furmay haddaad qiyaasto Somaliland maxay ka faa'iiday Soomaaliya maxay ka faa'iiday iyadoo laynoo diyaar yahay adduunka ayaynu wada hadal la furanay Soomaaliya waxay tidhalisay in dal wal oo soo dhiiran lahaa in Somaliland ictiraafaba ay ku yiraahdaan warniyow annaga wada hadlayno inuu kaaji waa kow waxay dhalisay in wax wal oo aynu ku wada heshiinaba ay ka baxaan sida uu sheegay walaalkay waxay dhalisay in waxaynu ku heshiinay ay ugu khaymaan airspace-keena ka mid ahaa heshiis baynu ku galnay war 60 idinkuna qaataa anaguna 40 aanu qaadano headquarter ku noqoto Hargeysa si aynu ugula soo wareegno aynu Soomaalinimo aynu ugula soo wareegno mar allaala markii saa loo soo wareejiyay intii heshiiska ka bixin bila wada wareegno marka waxa weeyaan runtana ha lasu sheegee wasiiradii waqtigaa joogay had baa ku gudnayd ha ku gudnaato laakiin had qof yaan la oran markasta oo Soomaaliya waxaan ka arkay xaqiiqda markii ka sheekan Ibrahim oo had baa ku gudnayd mashana waxaa la isdhaafsado marka wasiiradaas ma qalad ka lahayn wasiiradaas intayna soo horfariistay nin waliba tiisi u dhiibay wax cad oo yaalana ma jira laakiin mid baa jirta heshiis baa jiray aynu wada saxeexnay oo official ah heshiiskaas si uu qoran yahay waxa ku qoran inaynu 64 u kala qaadano inay dhinacna operation qaadato dhinacna headquarter waxay qoran tahay heshiiska akhriday waxay ahayd inuu headquarter ku Hargeysa noqdo oo eego in operation ku xamar noqoto in 40 ay qaadano wixii ka soo baxa 60 ay u qaataan heshiiskii aad gashay markaad ka baxdo sid qof u aamini kartaa laakiin xaqaaqa rasmi wuxuu noqday markii la soo afkartay dadkii ay soo iibinaysay deeqada la soo dirayay ayaa ay yiraahdeen inta halka Hargeysa soo sugan lahaa ay raano ka jeegareen dhan yahay soo maro waxaan kii soo mariyay ku dhigay khiyaamadii horta noqday halka waxay ku tusaysaa oo aad la gashay ilaa 60kii way baal marayaan marka waa dad aan la aamini karin
hadday muslim tahay oo heshiis wadasho oo mar walba wixii ka baxayaan waxaad ku talagasha male marka runtii dee waa laga hadlay in badan laga hadlo laga sheekeeyey mar walba waa khaayin wax kastoo kula heshiiso way baalmarayaan marka dowladdu xukuumadda dad muslima baynu waxaynu ugu weynaynu ugu jecelnahay waa muslimnimada nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi calaamaat almunaafiq ثلاثة qofka munaafiqa calaamadaha lagu gartaa waa saddex idaa wacada khalaf marka uu ballan qaado ka baxa taasaa ka markhaatiya idaa umina khana marka la aaminana wuu khaayima wa idaa xadasa kadaba marka uu wax ka hadlana been buu ka sheega saddexdaba waad ku arkaysaa waqti kale saamaxaynin su-aasha kale gudbaya su-aasha kale hal kelmad un barnaa xasan cadaan intigaa ka yiri intuu hadlay mar xamiyihii xasankaygii hore waxaan isbedbedelaya maanta markaa nin isbedbedelaya waxa laala wuxuu yidhaahdaa waa nala foy aan ka gudbina dowladda soomaaliya iyo maxaaska somaliland meesha kale waxa weeyaan ictiraafku faa'iidana wuu leeyahay khasaarana wuu leeyahay horta aynu ka horeyno axmed cadrow waa maxay khasaaruhu intuu horta leeyahay laga hadlo waa in faa'iidadiisa la babar dhigo horta faa'iido hay khasaaraha anigu markaan dee ka hadlayo somaliland waxaan arkayaa waddan dayacnaa jiritaankiisa la khilaafay oo la cadaadiyey oo hawadii laga xidhay oo baddii laga xidhay oo meydkoodii diyaaradii diiday oo walaaltinimada la sheegaya afka ah yaa haneefsan la yidhi alaabkiisoo bal horta marka heshiiskan oo arkaya waxaan arkayaa in horta faa'iidadiisu boqolkiiba 200 ay ka badan tahay khasaaraha isweydiintina waa maxay khasaarada isweydiintina waxa weeyaan dee wixii mustaqbal soo bixi doona mise siday dadka inaga soo horjeeda u dhigaan waxay u dhigaan diin bay ka dhigeen diinna laysuma hayo laba wada heshiis keliya axmed somaliland waxaan doonaynaa somaliland khasaaraha somaliland institutionada diyaar ma yihin inagu diyaar ma nahay aynu laba kala saar si soomaaliya war ka nimid maanta taala waxa weeyaan institutionada somaliland wasiirka cadaaladda ka ahayd ilaahay mukuugiinu diyaar u nahay maanta wasiirka cadaaladda ee adduunyada kala kulmi karno waan ku fahmay xaggii kala taagtay waxaad kaysa diyaar ma u nahay oo institutionska nima diyaarsiin baad doontaa saas waan ka wada ma wixii markaa qoraal iyo institution qoran institutionska intaan ka warqabo xafiis kasta from A to Z si loo maamulo oo documented oo detailed oo xataa la soconaya jira laakiin yaa fulinaya meesha la isku hayay waxaan aaminsanahay markii hore dowlad baynu ahayn iminka dowlad baynu noqon access maynu ahayn oo waxaanaynu ahayn dee because adigoo maxaad wasiir ka hay waan kuu soo wadaa 5 dowladood isla barcaray baynu nahay markii hore markii hore official bay ahaayeen xeerkeeni nidaamkeena ku shaqeeya labana gadaal bay ka yimaadeen oo waa saxaafadii iyo waxa weeyaan iyo maxaa tijaartii laakiin saddexda sharciyeena ku shaqeynaa waa kii xeerka islaamiga ahaa waa kii madaniga ahaa iyo kii dhaqanka oo saddexba official yihiin marka lama samaynin lama midaynin oo lagama dhigin institution keliyaata oo maxkamadaha islaamiga gaar buu shaqeeyaa mid cadan gaar buu shaqeeyaa dasamaad garan dhaqankan gaar buu shaqeeyaa intuba waxa lahayd awood isku barcarata dasamaad garan marka waxaas waxay u baahan yihiin in la nidaamiyo laakiin marka laga hadlayo xafiiska soo qaado wasaarad walba soo qaado wasaarad walba from A to Z ilaa ka ugu hooseeya ku sareeya shaqada uu leeyahay suu fulinayo way ku diyaarsan yihiin laakiin waxa soo hormaray awoodii macaamiisha oo dhaqaale isticmaalaya oo xeer aan soo saari karin iibsanaya dhaqan oranaya carm cadanta ka anaga reebel baan nahay imanka waxaas oo dhan khadka ka baxaya institution waayo macdantaadii iyo nidaamkaagiidoodii in dhaqaale ay xukuumaddu yeelato inay ka u baahannahay inuu reebel noqdo markaas xilligii laba adduun baa isticmaalay waa western iyo sameeyay inaga kiina Soomaaliya xilliga bare dee waxna ku soo barbaxay walda xeemar bahnayn caaqil ma noqon inuu jiro iska dhaaf xilba ka haysay dib wax la aqaan ardaydu marka isku tagaan bay performance u tagi jiray iiba imanaysa imaka wadamay waxaan ka hadlayo marka waxaan aaminsanahay waxna waa dhisan yihiin laakiin waxa jiray dee gaari mandara walahaayo dee imaka hadda loo yeelanaya marka waa la tabaraya imaka oo nidaamkii meel buu soo wareeyay central government awood yeelanaysa taas waa bii khatarta ugu weyn ee maanta ictiraafkeena ka imanaysa waxa weeyaan
amnigeena ama securitygeena laba shay laba dhinacba way ka imanaysaa mid ahaan waxay ka imanaysaa dad aan doonayn inay Somaliland la ictiraafo oo kartidooda wax allaala waxay hayaan u isticmaalaya inay dowladnimadeena dumiyaan taasi waa ta koowaad ta labaadna waxa weeyaan dad iyagu marka hore Israa'iil necbaa oo loo arki doono meel fududoo ay nacaybka ay Israa'iil u hayeen ay ka gujiyaan labadaasba amnigeena khatar ku tahay ta lagaga hortagi karaana si ay amnigeena aynu u sugno waxa weeyaan dadkeena oo bari iyo galbeed iyo kono wal oo Somalilandba sidaynu awalka ahayn si kasii fiican isku kaashado isgarab istaaga iyo dowladdeena oo u diyaar garowda in ay waxaasoo dhan inoo iman karayaan حيلك waxaad ahayd la taliye madaxweynaha waxaad ka shaqayn jirtay wasaaradda macdanta tamarta arrimaha dibadda institutionadaas in diyaar ma u ahaayeen sistamka soo socda aqoontii shaqaale ma jirtay boolisiyadii ma yaalin procedure aynu runtii isu sheegno wax badan baa qabi ah maxaa ka ogta dowladda ingiriiska maanta aynu joognee dhowr boqol sannadood dhisnayd maalin walba waxbaa lagu fuliyaa marka wax istaaga dowladnimadu wax meel istaaga ma aha waynu haysanaa base fiican ama meel sees fiican aynu ka bilowno waan haysanaa laakiin inaynu ku dhisno eg walaal marka qaarkood gaar ahaan marka dadkeena dibadda ka yimid ee dowladaha adduunka hore u maray soo arkay waxaynu doonaa waxay dowladaha hore u maray gaadheen inaynu samayno innagana waxay inaga xanibaya inaynu taa samayno maalkii ma hayno cilmigeena markaan tago daldanoo la baabiyey baynu hay marka walaal sees fiican waynu haysanaa madaxweyne wal oo dalka soo marayba seeskaa waxbuu ku daray laakiin inaynu halka ka sii badano maanta budgetkeenu inuu kordhaa laga yaabaa diblomacygeenu inuu kordhaa laga yaabaa kuwaas inoo saamaxaya inaynu wixii inoo dhisnaa wax ku darno faa'iidada diblomacyga baad ahayd ingiriiskaad in badan fadhiday hay'adda qurbo-joogga haysatay xagga faa'iidada diblomaasiga ee caalamka ee taraafika ku soo kordhinaya good horta diblomacygu de wuxuu inoo soo kordhinayaa dal aan la ictiraafsanayn bayna ahayn awood badan ma aynaan lahayn halka safiirada kale tagaan ma aan gaari kari jirin dilkii baan ku gaari jiray inaan meelaha shirarkooda iyo aan tago marka backseat kan fadhiyey de iminka waxa weeye calanku waa ii taagan yaho markaan safiir aan ahay frontline-kaan taaganahay dalkayga markaa kii aan ka iibinayay waan garanayaa de front seatkii baanu isugu imanayna first classkii baanu isugu imanayna laakiinse markaan second classka fadhiyo ama third classka dee maan iman karo dalkaygu wuxuu u baahan yahay one thing is there markaan ahaa safiirka Somaliland u fadhiya dalkan Ingiriiska waxyaalaha iga hor iman jiray waxa weeyaan gudaha shaqada gudaha taal marka ay hagaagto ayaad yihiin kartaa dibadda masal wasaaradda daakhiligga war aanad ogeyn oo saaka aanad helin baaba lagu siinaya oo lagu leeyahay waa maxay waxbaa halkaa ka dhacaya halkaas ka dhacay iyadoo aanad warkiiba aanad ahayn kafaar bay ku noqonay hadday safaarad siyaasad ku shaqaynaysa ay jirto oo ay wasaaraddii kuu fadhido dad garanaya in wax lagu weydiinayo oo ay every minute waa lagula socodsiinaya iminka maanta waxaan ka warhayaa in ilaa kontineeye shaqaalihii wasaaradda arrimaha dibadda ay ilaa 6 bilood ay hadda training ku jireen oo gelinka horena ay shaqaynayaan gelinka dambena ay ku jiraan training oo la barayo diplomacy international diplomacy la barayo marka waxaynu u baahannahay sidaasoo kale marka waxaad moodaa in wasaaraddii arrimaha dibaddu isdiyaarisay already oo diblomaasiyiinteedii bisatay laakiinse mar walbana wax loo baahan yahay in dad waayo aragii ay ku dhex jiraan dadka dhallinyarada waayo in shalay jaamacadda kasoo oo fresh ah oo la yiri DG noqo ama halkan fadhiiso
waxba ma uu dee haddana wuxuu u baahan yahay wax dee taageero oo garab iyo u baahan yahay waayo arag ayuu u baahan yahay marka waxa weeye waa dhisan tahay wasaaraddii arrimaha dibaddu waa dhisan tahay waa isu diyaar iminkana waxa weeyaan waa isu sii diyaarinayaan baan rajaynayaa oo ay halkii kasii qaadayaan laakiinse ogaataa siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda waa أنا ambassador ku daro haddaynu markii hore qardajeex ku soconay sidaa uu ambassador ku sheegay maanta diyaarad baynu raacayna sababtana waan ku sheegaya Israa'iil waa dalka influence-ka ugu weyn ku leh Maraykan iyo Yurub aan tusaale ku siiyo dadka senatorska la yiraahdo ama representative-ka la yiraahdo Maraykanka xildhibaanada Maraykanka ee labada guri ee Maraykanka boqolkiiba 90 waxa weeyaan dad ay Israa'iil dadka la shaqeeya ee AIPAC la yiraahdo ay soo saarto waa dawladda ugu taageero weyn markay noqoto labada guri ee Maraykanka markay noqoto dawladda Maraykanka waa dawladda ugu taageero weyn ee Maraykanka markay noqoto wasaaradda arrimaha dibadda State Department waa dawladda influence-ka weyn maanta dadkaas oo dhan waxay ka shaqeynayaan sidii Somaliland ay Maraykanka ugu dhaadhicin lahaayeen ingiriiska u soo noqon ingiriiska markay soo noqon boqolkiiba 80 in ka badan marka meediyaha ay qiyaasayaan waxa ay influence karaysaa dowladda Israa'iil dalalka kale adduunka markay west ahaan noqoto reer galbeed ahaan markay noqoto Israa'iil waa number 1 marka halkii awal sidoo ambassador ku sheegay horta jeexa ku jira xagga dambe fadhinay maanta Israa'iil ama AIPAC ka noqoto ama hay'adaha kale ay yeelka noqoto kuwii baa maanta inoo shaqaynaya taasi waa koowaad labaad dowladda Israa'iil meediyaha adduunka influence weyn bay ku leedahay waxyaabaha coverage-ka غير caadiga ah maanta ay nagu helay media adduunka inaga wada hadlayaan waxa weeyaan dowladda Israa'iil ayaa ama dadkeeda dad u dhashay ama dad la saaxiiba ayaa media adduunka hay taasina suuqa kordhaysa adduunka oo dhan bay ku geenaysaa labaad saddexaad marka la eegid financial system-ka adduunka banking ha noqoto investment ha noqoto waxay doontaa noqoto dadka ugu badan ee maamula waa dad ama Israa'iil ka soo jeeda ama ku xidhan marka saddexda shayba marka eegid maanta halkii awal qardajeexa ku soconay maanta diyaarad baynu fuushanahay laakiin sidii ugu faa'iidaysana bay ku xidhan tahay ka hadalay aqoonsigan xaggu challenge ka meeyaa ku sheegay ka daran madaqadii rijka waxa ku loolanaya horta waxa weeye Turkiga Egypt oo isku dhinaca Soomaaliya Iran iyo xuduudinta ayaga dhinaca waxa laga hadlayaa waa challenge bataas marka Turkigu wuxuu doonayay inuu ku sameeyo dayax gabadhii Maxamed Kitaab marka shock bay ku noqotay in maanta Israa'iil ay aqoonsiga loo timaado marka madaqada dabeetana waxay imanayaan markaas meesha la yiraahdo badan cas waa Egypt xagan ka daroosho Egypt Soomaaliya maxay uga dalay waxa ku ilaashatay ku difaacataa waxa weeyaan baribadeedka waxa kale doon haysan male waxa kale uu tartana male afar macallin oo soo dirtay inuu si wali soo jirto hadna halkii ka bilaabaysa fadhiya maanta badda cas marka inay Israa'iil la timaado waxay ku noqotay marka Ethiopia waa inay dowladda ay jaar lahayd xilli ay leenahay oo markii hore ka baqanaysay qaranka xoog leh inay deemaydu hore ugu aqoonsato maanta inuu xilisa garab marka adduunku waa laba dhinac ama wax weeyaan ama ku jirso maanta nasiib inuu burti ugu cusbay ya markii madaqada noqotay dowladda Ethiopia dowladda koowaad ee powerka xakan ah dhaqaalahan dib u carayna wax halka طريقة دقالة laga hadlayo maraya anada waa bataa marka waxaan ku leeyahay waxaan ku tirsanay marka warar iguma hayo ah dowladda ma tabari doona in xiriir doona ana waxaan aaminsanahay in challenge inoo yaala wax weeyaan shacabkeena inaynu fahamsiino in laga baxay wixii loo jiray deegaanka aniga leh yar halkaan ku daro Ibrahim baa ayaa taabtay oo yiri meel walba waxay ku leeyihiin community nimankan odayga ee odayaasha ee maanta traffic waxaan ogahay Somaliland safaaradaheedu masal ingiriiska kuma soo dhawo thousands of friends of Somaliland bay la xiriiraan ama parliamentarian ha noqoto ama shayb ha noqoto waxaa jira Irish
Jewish Friends of Jewish waxaa jira Welsh waxaa jira yani you can imagine iminka 800 oo Irish community baa maalin walba ay imailkooda oo inoo dagaalamay waa inagu aydaan ogeyn aanay ka waran in community naftiisa ay la xidhiidhaan oo communitiyada ama Arabic states waa Arabic waa Jewish community waa safaaradii sidaasay u wada xidhiidhaan qolo warsiisaa aakhirkana safaaraday ku ururaan sidaasoo kale ayaa loo baahiyay in community Somalilanderka ee jooga dalka Ingiriiska anigoo ka faa'iideynaysa runta inay la xidhiidhaan communitiyadaha dalka infaaro safaaradda ay dabadeedna ku ururiyaan warka si halkaa la isaga runtii gabagabadii baan ku jirnaa su-aasha aan aad laysu weydiinaya waxaa weeyaan adeer taas waxa weeyaan waa don't ask don't tell maaha waqtigeedii maaha waa jiraan dad maskaxda kaasaa jira oo dalkaasaa waa jiraan laakiinse mid aan tv-gan maanta ka sheegayo leeyahay dal hebel baa imanaya maadaamaad in badan ku dhex jirtay saaxiibada Somaliland leedahay garan maayo laakiin baan ku sheegayaa dowladdan inay ictiraaftay maanta Netanyahu oo prime ministerkeeda Mareykanku tagay waxyaabahay ka wada hadlayeen waxa ka mid ahaa Somaliland ictiraafkeeda uu ka tago India waxyaabahay ka wada hadlayeen waxa ka mid ahaa ictiraafkeeda markaad eegto labadaa dowladood midna waa populationka koowaad ee adduunka midna waa powerka koowaad ee adduunka waxaa jira dalal badan oo ay xiriir u leeyihiin Israa'iil ay gooni xiriir u leeyihiin dalalka Abraham Accord waxa ka mid ah Morocco waxa ka mid ah Bahrain waxa ka mid ah Imaaraadka dhowr dal saas oo jira waxa kaloo jira dalal kale oo ay Israa'iil ay difaac wadaagaan Cyprus ka mid tahay ama Qobrus ka mid Soomaalida yiraahdo oo Greece ka mid ama Greece waxa sidee u kala horeyn doonaan ma ogi waxa kaloo jira dalal iyaga dhawaan la ictiraafay South Sudan oo ay ka mid tahay oo iyaduna laga ay saas oo kale nooyay waxa kaloo jira dalal ay mucaarnayo Ethiopia iyo Kenya ay ka mid yihiin especially Ethiopia markay noqotay daweynigii ay weyn dalaga interest-keeda ay iyaduna sidii uga faa'iideysan lahayd loo soo kala horeyn doono garan maayo laakiin intaasoo dalil way jiraan runtii waqtiga ay haya ahla shacabka Somaliland weli qaar baa maqan aan runta sheego laas caanood way maqan tahay baran iyo deegaankeedu wuu maqan yahay maanta waxaa jooga beeshii dhexe iyo beeshii markaas awdal baa jooga ciise waxbaa ka socda Somaliland markaa waxay noqonaysaa intan mise beelaha ka maqan laftoodu iyo dadkaa kale ka maqan beelaha wada yahay Somaliland kuma jiraan miya horta waa aqoonsigaas wixii la oran jiray Somaliland ilaah baan isbaday marka hore waan ku sheego qabyo badan baa ku jirtay dastuurkeena waxaynu hayeen reerinayay dowladnimada rasmiga aynu haynay hadday imika dowladda timi ministry baa la helayaa dhaqaalihii baa la helayaa oo wax alla wixii la kala tabanaya baa la helayaa wax filaamay jiil cusub waxba dee fariid filan wax duuga isma kanan hada oo bal liito waxba haynin wasla carariyo waxa mala halka jidana ku jira waxa xasuustaa walaa sheegayso xasuustaa anigu wadaan ugu jira inuu sird la wada hadlay madaxweynaha wada hadlay wala war markaas markan wuxuu keenay faraka qaada markuu hada faraka qaada dadkii miyooda yaani ku xidhmanay intaas u jeemaan badbaadinay marka dareekas waa jira ma siyaasadan Soomaaliya kala burburtay ee imka noqotay farajaalka ah isiriyadkeeda iyo gobolada is sheeganayaan isiriyadkeeda sidii marka laga hadlayo Somaliland hawlba inoo taala wana waajib wixii kala gaaray reer Somaliland waa in la wada fariistaa laga wada hadlo waa waajib wana xilliga ugu haboon tahay marka horta waxa ka horeeya war wali yaroo qabiica baa jirtay qabiilada ku dhameystirmaysaa wuxuu soo qaadanaya un aqoonsiga aad leedahay miya Israa'iil ba ku qabatay xilligii tawrada ayaa ka caankiiba tawrada la oran jiray oday hargeyso oo la garanayo caan oo xamsilayba inta xarig ku saxaytii tawradii dee yaa lagu jiray magarasa sibir iyo jida ariya sheegay magaceeda ariya ku dhaca meesha Star iyo Mareykanka aqoonsada yaa ka daba hadli karaya
marka waxaan aaminsanahay walaalahayga dee reer laasca waa dadkeennii siyaasadda waa lagu kala karaa siyaasiyiintana dad kaliya kala sameeya kol haddii wixii ay naga maqnaa meesha uu yimi ya dee waa la wada ayagoo waxaan hubaa inay intooda badani sida imika ku jiraan 100%. waa inta Soomaaliya leedahay maanta waa marka runta ka sheegayna dee waa waqooyi galbeed baa la yidhahdaa waxa weeyaan khaatuma markii hore loolan jiray markii way isbedeshay dowladdeeda ay yihiin baarlamaan bay dhisteen waayahoodii iyo wejigooda cusbaa ayaa jira hooja cadu wixii ka dhacay waynu ogeyn dhiigga daatay waa la ogaa wixii la sameeyey dowladdii markaa jirtay cid kastaa way ogeyd qaadi sax waxa ay tahay intay Soomaaliya ku leedahay bay adigu adogu saxaa way baxeen sidee baa loo soo celin karaa dadkan maanta de horta waa nasiib darro inay wax san u dhacaan marka horeba ay laba kala saaro xadkan de maabkan somaliland ka dhexeeya dadka isdilaanoo weligeed istiri jireen maray qoriyeen si qaadaa megal kala dhacaan dagaalku marka cuslaa waa soo saar inay ka dhacdo wabay ahayd intaasi naga dhimid waxaa la yidhaha low taftax waa shaydaan maxay waxaas u dhaceen ruuxi waa dhaceen waa loo heli karaya dawladda waxaad heli karaysaa marka diiniskeediiya wixiidii aad hayso soo garan wixii ugu qiimo badnaa ee ina kala burburinayay ee ina kala laayay baahida faqarka hayda kala yarinayay systematic fiction baahidu intay leedahay dawladdu hadday timi wax alla wixii international caalamka ku lahayn baynu ama ahanay hayalaya tawciid dadka wixii ka maqan waa soo galtaan waa la soo galtaan cabdillah imika waa tan Soomaaliland iyo shacabkeeda waqtigii way hayeen maxaa la gudboon Somaliland iyo shacabkeeda Somal waa laba wax Somaliland marka Somaliland iyo shacabkeeda waa dawladdii iyo shacabkii oray dawladda waxa la gudboon dhibaatadayna haysatay waxay ahayd 100 kursi marka xisbiga helo 100 kursi baynu ku dagaalameynay oo la bixinay oo ilaa ay gaadhay la yiraahdo ilaa agaasima waaxeed ilaa wasiir hal bedelo waa 100 kursi haddii ugu badato maanta wixii wax ka badan baynoo yimi dawladda waxaan kula talin lahaa sheekadan qabiilka ee 4.5 kii muqdisho oo kale ah in la yiraahdo hoosta la sameeyo the right man for the right post one oo horta shaqaalihii la dhiso oo loo dhiso inankan meel yigi xamar baa berigii hore waxa lagu sheegay haddaad wax kale ii weydo macallin baad ii weydo waqtiyadii dowladihii siyaad bari kooriyo haddaad wax kale ii weyday macallinna miyaad ii weyday bay oran jireen waxaasoo dhan qalqaalaa la oran jiray oo reer xamarka waxaa sheekooyinka lahaa inagu waxaa mayna aqoon dowlad bay loo shaqo tuumayna kow in la dhiso oo ay dowladdu dhisto dalka dumaya wax laga dumiya waxbarashada one in waxbarashada la dhiso in la dhiso caafimaadka in shaqaalaha la dhiso in ciidanka la dhiso oo ay dhaqaalahooda loo kordhiyo saddexdaa meelood dhaqaalahoodana la dhiso tayadoodana taas mid ma tahay dowladdu inay ka shaqayso amniga gudaha iyo waxaan baase qabaa'ilka 4.5 kan iyo waxaan baase qiiminayo layna ka daayo sheekadan totally gebigeedaba la bedelo dowladda taasaan kula talinaya shacabkana waxaan kula talin lahaa horta dowladda talooyin badan waa jiraa wax badan oo qaadan qaldani waa jiraa waa jecelahay dee inay saxdo waayo anigu mucaaradna mihi muxaafidna mihi diblomaad baana siyaasina mihi laakiin wixii qaldan wax badan oo ay u baahan tahay inaan sheego bay tahay laakiin halkan kama aan sheegayo waa soo koobaya waqtigeedan la sugaya shicibka waxa lagu 4 sano iyo 10 sannadood oo ka horreeyay oo la garaacayay ayay soo mareen dagaal adag bay soo mareen oo kale dagaalkii maanta mid ka sii kulul yaani uu noqon sidii Suudaantii 4 sannadood u dabaaldegaysay xorriyadda 1956 markay xorriyadda heleen 4 sannadood ilaa 1960 u dabaaldegayeen xorriyaddoodii bay u dabaaldegayeen markii xorriyaddii timina ab waa ya la beek waa la dhaasay waxaan leeyahay
dabaaldeg uma aynu baahnayn waxaynu u baahannahay difaac iyo feejignaan iyo wadajir iyo midnimo oo ayni dalka qof walba ka tuuladu hermaanku ilaaliyo ka miyigu ilaaliya ariga la jooga askarigu heegan uu noqdo aas weyn badiya maanta irmaanaa laakiinse waa sidaynu u ilaashanaa yaynaan ku habsaamin waa layna ictiraafiyo dalkeebayna ictiraafayo taa shaqadiinna maahee dowlad baynu u xil saarnayo dowlad baa inoo ku maqantaa waxaa xillina ka saaran yahay in qaarku neighborhoodku mid waliba ay askari noqdaan oo eegaan miyi iyo magaalaba shacabku oo dagaalkaa hore aynu soo galnay ayni kii labaad waxaan ku sheegayaa markaynu xorriyadda helnay minaad dhegaysatay mooye maxamed xaaji ibraahiga ilaahay ha u naxariistay aad baan u jecelahay khudbadihiisa wuxuu yidhi maalintii london uu laynoo seexay xorriyadda in 26 june aynu qaadanayno 1960 ummaddiisu la hadlayo b b c da wareysatay wuxuu yidhi dagaalkii koowaad maanta waxaynu ku eegayaa inaynu xorriyadda haranka meelo kale waynu soo marnay dagaalkii koowaadee xorriyaddeennina waynu helnaa laakiinse sidaynu u ilaashan lahayn ayay ahayd ma ilaashinoo waa tii lala carray ee xabar la geeyey for your information maalintii calanka la taagay halkaa joogay waan garanayaa magaaladaa joogay give you me maanta ka hor maa sheegin tukaa la carray qori baa laga taago waan garanayaa malcamadan ku jira tukaa la carray calankiiba gebigeedaba taariikh bay ahayd cajiiba waan marka iska warrama halkaa joogay iska dhaafo mar kalaan ka warrami laakiinse yaa waqtigu inuu ku dheeraa waxaan leeyahay maanta inoo curata hayna ka gaagixinina nin mucaarad ahaa iyo mid muxaafad ahaa ayni wixii wanaagsanna isku garab isku seeno sidaa xusbiyadu ay siiyeen anigoo weliba intan ka faa'iidaysanayo halkan aad iyo aad ugu mahadnaqaya wadaadadiina sida mudakirnimada ee sameeyey u taageeray ictiraafka xusbiyada qaranka ummadda somaliland miidiyaha wax allaala aynu u midownay ayaan aad iyo aad u taageeraya aad iyo aad u hambalyeynaya ciidanka qaranku waa koowi waa ka baxay ibrahim laba u kala qaada aan mid ka horeysiine maxaa la gudboon dowladda adoo koobiya midi waa dhismaheeda waxa weeyaan dad karti iyo aqoon u leh madaxweynaha ha keenso level walo dowladdaba ka mid ah way fiican tahay inay ummaddu iska dhex aragto oo ama sida laynoo kala qaybiyo qabiil ha noqoto ama rag iyo dumar ha noqoto la iska dhex aragto laakiin waxaan anigu jeclaan lahaa dad kartidii leh inay dowladda iyo khibraddiiba u leh inay dowladda la shaqeeyaan oo madaxweynuhu uu soo doorto dad karti iyo khibrad leh taasi waa koowaad idina waxa weeyaan waxqabadkeeda dowladda waxqabadkeeda waxay nimankan ingiriiska inuu la joogna baa yidhaahdaa shaaga dib ha u samayn do not try to reinvent the wheel war dowladaha aynu ku dayan karnaa singapore oo kale inkastoo halkay kasoo bilowday aynu eeg waa dowladaan biyo lahayn oon macdan lahayn oon waxba lahayn maantana mar walba saddexda ama afarta dowladda ugu sarreeya ama caafimaad ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ayay gashaa aynu wax ka baranno hadday afrika noqoto dowladda ruwanda shalay gacmahooda isku goorgooreen nagu dhacday mid ka daran baa iyaga ku dhacday haddana maanta waa dowladda ka muuqata afrika aynu kuwaa wax ka baranno ayaan odhan lahaa oo aynu siday wax u qabsadeen aynu inaguna ku dayanayno aynu ka daba marno weliba waxaanu ku darayaa saddexaadka dowladda cadaaladduna maaha unta maxkamadaha miyigeena haddaad tagto dadaan biyo cabin baad arkaysaa biyo ay cabaan dadaan haysan baad arkaysaa dhaqaalaha dalku meesha kasoo baxaana waa miyiga maanta haddaad dhaqaalaha somaliland eegto waxaad arkaysaa inay inta wax soo saarka ugu badan inuu miyigeena ka yimaado dadkeenaa miyiga ee xoolaha raacaya aynu ku faanayno marna sacuudi u dhoofino marna adduunka ugu faanayno dad baan biyo ay cabaan aan haysan marka cadaalad waa in la ogaayaa oon cadaaladdu tii un maaha maxkamadaha cadaalad inuu qofku biyo u cabo iyo wuxuu cuno uu haysto taasi number one waa inuu noo noqdo waxbarashada waxa kale ku xiga laakiin inaan biyo u cabiyo wuxuu cuna haysan waxa kale micno ma yeelanaya
shacabka xukuumaddu dee howlba u taalo waxaan filayaa dee inta garanayna way garanayaan laakiin waxaan ku soo koobaynaa uun aqoon ilaahay idinka mayso xaafad ahaadaan loogas wasiirka oo noqon wasiir qabiil noqon wasiir qaran noqonayo taa ayada waxaan u jeednaa xukuumadda maanta loo gudbo shacabkeena waxaan leeyahay waryaadha foojignaada yaan la idinku soo gabadhin diin meeshan aqoonsigan diinka kow waxa weeyaan waa diblomaasiyad yaan la idinku soo gabanin waxa weeyaan oo laydin odhanin maanta baddiisa baan qaadanayaa oo waxa weeyaan maanta cid walba waxay ku doonaysaa inay baddeeda keyntada ka toosho yaan la idinku soo gabanin walaalidii falastiin baan nicibti waan igu gurmanay falastiin waxba lama diidanin la dareen baanu nahay laakiin taa macnaheedu maaha adigu somaliland ha dhisanin oo cid hala xidhiirin taa macnaheedu maaha marka waxyaabaha aan laynagu soo gabanaya beenta ayaan layna odhanin waxaad la xidhiidhid baa la xidhiidhees iyagoo gebigoodaba international la wada xidhiidho oo ciidan wada yihiin iyagoo kuwanooba ahlo kutub oo diin baabay leeyihiin kuwii ka daraayay beegagaayeen dayartahaa ay la xidhiidh la wada leeyihiin oo ay joogaan ay leeyihiin maanta baddii baa la qaatay maanta waxa jooga koonfurna gebigooda ay yihiin ajnabi ay yihiin marka adiga lagu wacayo waxaagii ka foojignaada waa taas qodob wadajirkana dee waxa la qabaa intaa ay sheegeen ibraahin iyo waxaan ku darayaa intayna qurbaha joogta badanaa saad og tahay dalka ina way dagaalamaysa laakiin dagaalka aynu dagaalamaynin dalkeena ku xoreynayno qurbaha aadka looga keenayo iyo diblomaasnimada waxaan leeyahay inta qurbaha joogta ambasadorku keliya ambasador ma mid wal oo inaga intamadihiba waa ambasador nin wal ama maraykan joogo ama ingiriis joogo ama carab joogo nin walowba afkaa taqaanee ilaahay ku baray iyo kartida ilaahay ku baray iyo dadka la joogta inaad Soomaaliya ka dhageysid weeyaan inaad dawlad walba especially in ingiriiska jooga nin walba MB gu leeyahay walbaabka ku qaraaco yiraahdo maxaa dalkayga u qabatay dadka foodkayga doonayso marka waxaan leeyahay qof wal oo Soomaaliland oo ambassador baa jooga ambassador Abdullahi wasaashu gudmaysan leeyahay maxay nala gudbaan qurbo joognahay haddii qurbo jooga aynu nahay waxayna la gudbaan dagaalo badan bayna dalkan ka soo qayb xamaasado badan bayna soo maray yaynan ku koobnaan oon cayda walaalaheenna garan waayey inay gartaan waxa aynu doonayno laakiinse inay caalamka u bandhigaan huwi ka aynu nahay somaliland waa maxay caalamkii hadda wayna hayaa wayna barta inayna halkaa ka sii wadno oo idinku oo midaysa oo wadajirkiina ilaalinaya oo koox noqonaya dadootaan magaalo urur samaysto community adkayna waliba dalkan ingiriiska ilaa 2-3 magaalo maaha weli ma haran community waaxid oo midaysan oo meel مثلا Somaliland community way jirtaa Israel community way jirtaa Birmingham community way jirtaa Sheffield community oo Israel way jirtaa laakiinse ama ha noqoto Great Manchester ha noqoto Bolton iyo Manchester iyo Liverpool community waa in ay idin samaysataan oo meel yeelataan oo warkiinu meel ku ururaa si aynu u koobno warkan aynu koobno MB-yadiina u dirtaan warqadaha sida ay oo ku soo xidhaan safaaradda jamhuuriyadda Somaliland oo safaaraddanu ay la ogaato oo aad ku xidhataan safaaradda si dagaalku meel ugu wada ururo oo hawshu meel ugu wada socoto waxaan leeyahay dadkiina dhalinyarada ah safaaradduna waa inay roster samaysaayo dadka mutacalimiinta roster ay u samaysaa qof waliba waxa uu garanayo oo u gudbisaa jamhuuriyadda Somaliland wasaaradii ay khuseysay ay u gudbisaa qof waliba waxa uu garanayo oo u gudbisaa dhalinyaro badan oo mutacalimiin baa jirta waxaan u baahanahay dhalinyaro ciidanka gasha oo technology-ga barata oo loo diro scholarships loo diro marka roster la sameeyo dhalinyaro badan badahan ku dhalatay 3 generation baa la joogaa waa maxay fariinta dhalinyarada diraysa adigu waxaad ka mid ah soo qabtay khadarow maadra saxaabid og jirta waxaan lahaa inaynu u samayno barnaamijyo luqadooda waa
waa ingiriisi you know what I mean right absolutely waxaan kugu hambalyeynaya berigii inaad u samaysay journaalkii quruxda badnaa ee soo saarayey aqoonyahanka iyo taalkooda waxaan aaminsanahay inaynu taa ka howlgalno si ay markaa komitadani uu ka hadlayo safiirka iyo ibrahim inaynu ay u gaarsiin karaan codkoodana uu noqdo luqadooda koobaad ay noqotay ingiriisi noqotay inaynu ka tarjumno inaynu sida dadkan aynu iminka la joogno afkooda u hadlaya gaarsiinaya inaynu u samayno meeshii ay ku gaarsiin lahaayeen fariimaheena caalamka axmed aad iyo aad ayaad mahadsantihiin dhammaantiinba waayahay waxaan ku jiraa gabagabad waay hadal baad oranaysa kelmadda waa ugu dambaysa maanta waxaa socdaa waxa weeye generation G generationkaas maanta technology baa la isku garaacaya inay generationkaas maanta midoobaan oo urur ay yeeshaan sida Somaliland alliance oo kale oo magaalo walba ay ku yeeshaan generation hadday generationadii hore isfahmi waayeen maanta waxa weeye it's their time waqtigoodii baa yimid midoobeen dhalinyaradaas waxa samaysteen urur aan ku daro way ugu gabagabadii dambeyntii way laba kelmadood baan odhanaya ambiyada mid ka midaba caruurtiisa mid isugu yeedhay oo 12 uloodu kala dhiibay mid walba marjabi markuu isku way jirin kara sida intayna Somaliland deganaan sidaas u haysano haddii kale inuu kala baxno midkeen mar baa la jebin doonaa taasi waa koowaad taa ugu dambaysan leeyahay sida quraanka la inoo sheegay oo Allah wa udeecu rasuula wa ulal amri in ilaahayna ka baqnayno adeecno inta in hogaaminaysa aynu daba istaagno ilaahay baa inoo dooray ilaahay baana dooray inuu hogaaminaysa laakiin madaxweyne iyo cabinet iyo baarlamaankeena inaynu daba istaagno oo aynu mid ku noqono waxaan u doonayaa video halkii madaxweynaha Somaliland maadaama aynu qaran noqonay madaxweyne doorashadii golaha deegaanka iyo baarlamaanka ay soo socoto waxaan maanta waxaynu u baahannahay dad inaga saara dalcadan oo aan soo shaqo tegin aqoonteedii leh inay u bataan dadka baarlamaanka soo taagaya dad shuruucda hadii soo xulaysa cala aqal ha keenan qof u qalmo oo shuruucdii wax ka garanaya shuruucda aqoonta golaha deegaankuna waa dad waaweyn oo labadii afba ka soo daalay oo garanaya khaasatan engineering-ii leh oo qurxintii magaalada leh wax laga hadlayo waa dhismaha magaalada marka laga hadlayo golaha deegaan hadda soo shaqo taga waxaan lahaa shardi ha lagaga dhigo shuruudaha ile way haddii xataa reer loo soo dooranayo at least rex waa leeyahay dadkii shuruucda u bartay keeni karaya waxaan lahaa ha lagu xidho oo yaanay hore u dhicin u dhacday shahaado been in loo soo sameeyo u soo shaqo taga meesha madaxweynaha runtii ambas cabdilaahi aad baad maasantay waqtiga aad soo hortay ibraahim yuusuf la taliye aad iyo aad maasantay wasiirkii hore aad iyo aad maasantay maxaa soo soo boqoteen haddaba waa yahay barnaamijkeeni waxaad moodaa inuu gabagaba yahay runtii waqtiga inuu inagu simi waayey wax badan baan markaasi ka dhugtay aniga waxaa igu cusbaa ictiraaf yimi laakiin loo baahan yahay shaqo badan iyagu waa sheegeen midnimo waa ta koowaad ee markaasi aniga qoysan kara waxay kaloo sheegeen dowladdu waxay u baahan tahay inay jiil cusub iyo waji cusub keenaan ee aanay 4.5 kusoo xulin u malayn maayo inay maanta dhacaysa beritaba dowladdu waxay u baahan tahay shaqo badan shacabku wuxuu u baahan yahay shaqo badan inta mar kale barnaamijka kumayno waana waqti dir maxaa cusub maalin wanaagsan haddii maalinta fadlan ku xulnow saaxiibada iyo faamigaaga inta mada kale kumayno xaleeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu